الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. وحن aad u tamaninahay xogaa in shariifkana loo daayo meel fiican bay ku socotay. tawaaduci iyo hawshii iyo axaadiistii dee faraha badneed run ahaantii aadna la kugu sii raaxeeyo maqaamkan iyo xafladan jaliilka ah. ikhwata alkiraam, qofka insaanka ah haddaan xadiidka ama mawcidada ama halka shay uusan anficin, waxaa laga yaabaa inaan boqolaal ku anficin. laakiin waxaa loo baahan yahay in xadiidka ama aayadda uu akrinayo qofka uu ku fakaro. hadda waad maqlayseen shariifku intuu axaadiis akhriyay nabiga calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisii. axaadiistaanu ama aayadaha qur'aanka ayo shariifku noo sheegahayay uma tagtay lala hadli mahayo. ma aha waxaana loo akrinayo tawreed iyo injiil ma aha. tawreed iyo injiil waa laba kitaab oo la nasakhay. hadda markii lagu yidhaahda xukumkaasaa tawreed ku sugnaa ama injiil ku sugnaa, in lagu camal falaya ma aha, bal waa inaad ogaatay un xukunku sidaa inuu ah. ilaa waxaa la ogsoon yahay adyaanta ilaahay uu rusushiisa la soo diray kiraamta ah, tawxiidka waa ka midaysnaayeen. laakiin furuucda ama waxa axkaamta fiqhiyada loo yaqaano way ku kala bedelnaayeen. qoladan waxbaa lagu waajibiyey, qoladan waa loo baneeyey. qoladan waxbaa laga xarimay, kuwan lagama xarimin. marka tawreed iyo injiil axkaamtoodii markaad maanta ogaatid, ma aha wax lagu camal falayo. keliya inaad un ogaatid xukunku inuu sidaa yahay. laakiin markii xadiidka nebiga iyo aayadda qur'aanka iyo shareecadii islaamka lagaaga sheekaynayo way ka bedelanta. waa wax la rabo dhaqankaagii inay noqoto iyo waddadii aad qaadi lahayd. ilaahay muxuu ku tilmaamay? wa ina haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh. waa waddadeydii mustaqiimkaada raaca bale. walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum. shaydaanku waddooyinkiisu waa badanta. haddaad mid halkan ka diidid, xagga kaleu kugu duwahaya. haddaad middan ka diidid, midda kaleu kugu duwahaya. waad aragtay mid balwadiisi wuxuu ka dhigahaya inuu wax cabo, inuu wax dhuuqo, inuu maartay. mid wuxuu ka dhigahaya inuu wax dhaco oo wax boobo oo wax hado balwadiisii. ya mid wuxuu ka dhigahaya dadka inuu dilo, mid inuu cibaadadii dayaco. kulli waa wadooyinkii shaydaanka. qofba un meel buu balwadiisii ka dhigahaya. markuu arka wadadan qofku inuusan u qaaday, waddo kale u qurxinaya. midii kale hadduu u qaadi waayo, mid kale u qurxinahaya. haba opshano badan buu soo garab dhigahaya. markuu un meel ka waayo, meeshii kale un ka helahaya xoogaa. laakiin diinta islaamku waa hal mid. waa wax ilaahay ugu talagalay dastuur ama nidaam koonkaanu uu ku soconayo. nala ka rabo inaan ku dhaqanno. ma ahan inta dhegaysano shariifkii axaadiistaasu akhriyay, maa sha allah, nebiga tawaaduciisii buu ka warramay. ma aha wax nebiga khaas ku ah. waa wax aan rabna noloshannada inaan ku dabaqno. waad arkaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo hadda shariifku noo sheegayey inta axaadiisna loo akrinayay oo ilaahay door gelinsiiyey. ma waxaa rabtaa inaad noqotid nebi iyo rasuul boqor ah.
mase waxaa rabtaa inaad noqotid nebi cabdi ah. muxuu nebiga doortay calayhi salaatu wasalaam nebi cabdi inuu noqdo. annaka waa aragtay ninka xoogaa shilimaad maanta hela qoladii kaloo safka iskula jireen waa ka madax taagayaa berri. hadda ka hor nin baa igu yiraa qaraabo ahayd mid seedigayahan gacan usoo taaguy oon salaami tegey xoogaa waana iska jeeb marnaa ninku seedi waa salaami diiduy walaashii buna hadda qabaa. waadan buu wuxuu igu yiri wiinihow xoogaa midhaa jeebkiisi laftiisa wax ay gaareen raalli iga noqo buu yiri. maalintaas waxaan kuu salaami waayey buu yiri. raggaan leebelkayga ahayn ma salaami jiro ya bal xadka aan gaarnay fiir haye meesha aan gaarsiisanna qoladan dee waqooyiguna waxayba taqaanaa hebel safka horuu galay. macnaa dadkii masaakiinta ahay hadduu safka masaajidka jamaacada ugula tukado waa nin musallifay safka horaa laga saaro xoogaa lacag ha loo aruuriyo. markuu shilimaad hela marka masaajidkiiba imaamahayo meelihii khayrkii waaba ka tegay. bal fiir nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waad aragtay xadiidkii muslimka tirmidigii uu wariyey. ilaahay wuxuu doortay baa la yiri min waladi ibraahim ismaaciil buu ka doortay. ismaaciil waxa uu dhalayna wuxuu ka doortay baa la kanaana. reer kiraanana quraysh buu ka doortay. qurayshna reer banu haashim wasdafani min bani haashim biadna reer banu haashim baa la iga doortay. wa akramu alawwaliin waalaakhariin. markaasaad arkaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka hadda shariifka uu sheegayay gabadhii xataa caqligeedu wax ku jireen waa qaaliban wax dadku yaso oo uu ka cararo uuna haa nebigu calayhi salaatu wasalaam dartaadaan kuu gudaya. ilaa nebigu xataa waaducuu ka gaaray ilmaha yarka hadduu gacantiisa qabsado kama sii daysa jir meeshuu la aadayo buu la aadi jiray nebigu calayhi salaam. ilaa waxaa lagu leeyahay ilmahaasu inta daalo nebiga gacantiisa iska sii daayo calayhi salaatu wasalaam. والإسلامك ودين العدل ودين المواساة ودين التواضع. قف كل ربو هدي إلهي حولك كسيو هدي إلهي عافمات كسيو هدي إلهي دين كسيي هدي إلهي عقل كسيي هدو حكمة كسيي إنا دو أديك ستي تواضع دي أودا كوح عمبارين كبير حقدي حسد dadkii kale aad iska sara mariso aad san taagto kibirto. dadkaaga horoshaha aad la cabi jirta iskala cab masaakiintaada la fariiso la xaajo danahooda u oofi. waad aragtay sayid cumar markuu hadlahayay uu yiri madiina waxaa deganeed maamo weyn oo qof qaraaba iyo qof u dhow midna lama arag ilaa waa dadka asxaabtahay qofba meel ka soo haajiray qofba meel ka yimid laakiin maxay ahaayeen إخوة بعضهم من بعض. مركزا وحان إلى هذا هذا سيد عمر أدنيه هذا أدو أوفيس مركان همين كي إيو أنا صور مري تبو إلى هذا أدبيه أسو داميسد أما حابا أدو سو قرتد أما ميلها أدو حاغدي كل وحيد أما وابعو ديار وروحان يا قبطة يا كو قبطة قبل مكا ويديو ما خابتا نمبا ميلها يمد هوشي بونا قبطة وانا اسكتك. hameenkii dambe waa kii meeshaa u galay inta soo orday. qofka waxaan fulinaya oo xaabada u soo guraya oo biyaha u soo dhaaminaya oo dabkii u shidaya waa abubakar radiyallahu anhu. bal fiir dadka tawaaducooda waad ogtiin abubakar markuu khilaafadii qabsaday waa jaariyad uu lahaayo maartay meelaha la joogtay baa waxay tiri alla yaa ariga noolisi doonay tiri abubakar khaliifatu rasuulillahi buu noqday. wuu maqlahaya waxba iga bedeli maysi oo arigaygiina waa lisahayaa buu ya ha annaka hadda dhaqanka waaba la isku cayaa ninka arigu lisay iyo maartay bas wey ya waa waxaad moodaa wax un caadaad oo qaar badan diinka islaamka ka soo horjeedo oo fara badan baanu la nimi oo aan la fiirinayn. hadda waa artay mid baa birta tumahay warsoo nabiyullaahi daa'uud ma ahayn xadaad soo ma ahayn nin birta tuma ma ahayn حتى قبل سكاس لجوسم هاي إله هو فيلم كم هذا هنا هبل لو يقان وبس مقعد لو بحيي أسيء علمي صدق لي يصير نقناي
hadda ogow mid kasta u yasahaya kirligiibu u keensanahaya weelkiibu raba inuu u hagaajiyo asaga waxba ma qabsan karo waa wax cajiib ah marka waxa la rabaa axaadiita oo maqsuudkaygu yahay aan maqlayno ama siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan dhagaysanayno inay dhaqankanaga wax ka bedesho waad aragtay asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam say diintii islaamku u bedeshay ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وهذا انت الجاهليه كسو جري قار لخدن جير كسو اسلامين قار تدباتن جير كسو اسلامين قار كواوين قار كدلن يرا جاهليه وحبا ان لا اقون منكر زنا ايسان wax fawaxish oo la isku ceebeeyay ahayd khamr lacaba iyo wax daroogis la isku ceebeynay qof dulmiyo ama dhaca ama dila ama booba ama xadar la isku ceebeynay misna markay soo islaameen wadadii ay ku socdeen oo dhan diinta islaamka ay ka leexisay wadartinin baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam dhalinyaro uu soo islaamayay dadkaasuna ma jeclayn ballan inta qaadaan inay ballanta ka baxaan sida annagoo kale ma aysan ahayn maanta qofkaad ballan isku ogtihiin albaabka masaajidka xataa kala bixi maayo waa halkee ka baxday ma jirto waliba dee soomaalida haddaan nahay ballan la'aan waa wax caado iyo da'di noo noqota hadda dad badan baan ku arka qof baa la ballamaysaa saacad hebla meeshaas iigu imow ama meeshaasaa kuugu imaanaya haye hal saac ka bacdii buu kuu imaanaya ama kusoo wacaya hadda maxaa kugu dhahay hadda soomaali baan nahay ballantanada waxaan ognahay inaan lagu imaanaya hal saac baan maartay baan isiri dib u dhig ya macnaha sha'ni bayba noo noqotay ballanka baxyadii iyo wixii marka dadkaas waxay ahaayeen dad ku adag markay nabiga bayca la galaan oo hortiisa ballan ka qaadaan inay ka baxaan aad arkaysa asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan oo kamid ah labiskii ay xira jireen markay nabi maxamed la joogeen ay diidan inay bedelaan iyadoo adduunyadii loo furay oo masar ay furteen oo shaam la furtay oo ciraaq la furtay oo yaman la furtay oo dee xoogaa islaamku ciriirigu ku jiray iyo hanti la'aantii iyo laga baxay ma ogolay تسي عمر بوارد مراديسو دور iyo 10 meelood bay karma ku leeyahay marada uu qabo iyo qamiiska uu qabo bay ku leeyahay mana ka kibray anakuna waxa laga yaabaa gelinka horana waa labis gelinka dambana waa labis subaxdii waa labis galabtii waa labis kale waxa nagiba baday fariiqa waata Abu Ubayda shaam ninkii hayso daacuunkii cimwaas uu dilay maradan suufka ay ma iska bedeshid bale waa ninka dhan oo dhulka shaam haysta oo hadda inta soo dawladood maanta tii nabi maxamed aan uu ugu faaruqay baan kula kulmayaa dharkan xira jiray sidii anoo abaan maartay labiskaygu iyo waxba ka bedeli mayo ana dhaqanku ku ninkan marka dhalinyarada nabiga markuu u yimid oo rabay inuu soo islaamo wuxuu yaa rasuulullaahi iidan li fi zina xogaa wuxuu yiri inta kala beecada waa galaya laakiin xogaa baashaalka gabdhaha aan la baashaalo inta ay idab asxaabtii waa lagu qayli tagay nabigu daayay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa tabiib qof kasta cudurkiisa yaqaan dhakhtar qof kasta caafimaadkiisa iyo cudurka haya yaqaan u kaadiyo soo dhawow buu yiri markaas wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam hooyada ma jeceshaa inaad ku aragto iyadoo waxaan lagu sameeyay kaasuu ilaahay ya rasuulullah qofna hooyadii raalliga ma inay baashaal gasho gabadhaada maya habariyad eedadii dadkii maxaarimtiisa haba u tiri wallahi buu yiri marka aan meesha nabiga hortiisa ka istaagay wax aan zina ka nimca inaysan jirin alayhi salaam ha qofku marka fiir waxa la rabaa marka diinta islaamka oo aan dhageysanayno inaan wadadii hore ku socono ay wax naga bedesho waxaan iskugu nimid calayhi salaatu wasalaam waa nabiga xafladiisa oo
نلك هذا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام تعديم كيسي اتباعي سي يا قدوتي سي النبي عليه الصلاة والسلام وحال الربا مركا وحبدان إني نقبدش وقفكو ما أنت سوء بالرئي وحكبدش مركز مقاش النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وحول ونشري سيدي وحول هذا واركي سنة شريف إنه نوشيك هي نبي مركو وحولها يميلكم ما تيرسجر ميساس إيا أنت النبي الله صار مالهين سيدي قف كذا وكلوساس النبي أنت أفريسه وقف كإسكام مستوجب قف دكسان أو كله قف أنت كعون كرائس كيه سيدا النادو كلام ما أهين حاجة وحيسكدك طبعا ما بأهين بالنبي عليه الصلاة والسلام ده أبي سبب ما بأهين إنا قضيان تواضع عيسي أن قضيان ووحا ما أنت النفساديني ولما خاصة هدان صومالينا ريهبل مارتي كوحبل قف بقف اسكالا صحري dadkii horena aad arkaysa muslimiinta asxaabtii nabiga ka soo bilow waa a'immatu taabiciin kuwii ka dambeeyay ilaa yoomina dadka waa wanaagsan oo suulaxada aha mid kamida hadii la weydiyo war dadka yaa ugu khayr daran qof iga khayr daran oo iga shar badan ma jiro kulay macnaha dadka kale muslimiintana waa u niyad wanaagsan yahay asna wuxuu isku arkaa qofka ugu sharta badan inuu qofka ugu sharta badan inuu yahay buu isku arka marka waxa iimaanaysa tawaadu qofna qof inuu san ku xad gudbin qofna qof inuu san yasin qofna qof inuu san ka kibrin ba iimaanaysa marka hadaan akhlaaqdii nabiga calayhi salaatu wa salaam an qayba kala ka taabata مثلا nabiga hab dhaqankiisa وكي أنس بن مالك ولها خادم كي النبي عليه الصلاة والسلام يا كل يوم وقرنيسين أنس بن مالك وكي لها حديث كي مسلم كي خدمت الرسول الله 10 سنين إلا النبي مركو كسوت ويمد مدينة تذكي أصحابتها وأرتين قفوا حبوا النبي أوسو هدية إلا النبي صدقة سجى ما قالتش عليه الصلاة والسلام قفوا حبوا أوسو هدية هدية وقاليسان وهدية أم سليم وأنس بن مالك هو يدي قبر عجيبة بيهات وعقل بدن ويل كيدان وأغونا صوت النبي أتمي وحتري على رسول الله إن أنس غلام كيس وإن ومسكح بدن بيتري حقوق خدمية بيتري أنا أيضا هدية أنا حيسا نبي وأقبل عليه الصلاة والسلام طبعاً كاسانو نبيك هدو سفري هاي إيه هدو نجي هاي ولا صودا حيلا عجيب كوحة كتصينية معلم بان هو يلي قدري كصودا هاي بعقله سأنس وأنا كايا طبعاً كسنتي هل كيكون مغرب بيت الهويدي يا رسول النبي قدان إيه درسدي ومحي هدان تقود درسدي وسرب يكوشي بمهي كوا نو هذا مكلا كوا لما تنشر كمان بكلا أقول ها وإلا مغلانه هذا فيسبوك يو إنستغرام يو واتساب بلا يا بالله صادق أحيان سرب متشوت قف كسعود كهلا قدو هرت المسألة ده سو ومسألة هذا عادي منه لكن ومسألة مشكلة ضد كإسلام كقويس بان ضد كدلني يرادا وقدقية بان وقدقية وكن النبي الله عليه الصلاة والسلام قفكي ضد عدكو دقيستا أيكو كهانا هي مالين قيامة دكتي سوحا لغشبة هيا نحاساس إيا ورساساس الدلالية بالغشبة هي قف بقى اسكا هادلا هيو ان وركا هين بالتليفون هوس تعود كا كدوبيسا هذا ترى عدكيسي وافافيس انت بل ادغارسينيسو فساد سمينيسا فيه waxyaalaha noocaas ah laga digtoona
قفك حتى هدو قف وحكا دوبي وإنه رخصد ويديست ما كان لنا وحدة دينية أو دي دين كدتك واحد حية لكن دتك واحد دنوجة دتك سر بيلي وحو قرصنا هيو أدوك بابلك مكيني كرتي مركب وحو يري أنس هو يصير بيهدو يري أرنت النبي وكون الشيء معي مركب سيتر قفتا بها أورهم سيبان أورهم يا أدو هو يلا يبان كادي ديبي وهو الكياكا معناه هو ده تربية دي النبي برتين عليه الصلاة والسلام وهي أجيهن إن الله أقولين سرته إن لفافية أنس مركوح يمرك النبي ومدينة يمد خدمت الرسول الله 10 سنين طبعا كان سنان أخذ مين يجيبي بل لقيست نبي أخلاق دي أخلاق مخلص هو حبك نبي صودتك أولاد معاملات شري سوء أولاد دغم شري أنك وواحد ما أنت على كربه إن القوة لحظة نذا كل دقان إن المها نذا كل دقان إن حاسس كنا كل دقان إن أهل كنا كل دقان مركز وحي خدمت الرسول 10 سنين هذا بلغيس الصومالي ما أهان طبان مال ما أهان طبان بلاد ما أهان سنة 10 سنين فما قال لي أفي قد أفي دوا كلمة نرف كنت سنس يا وحي إن أتكعوا مات ولأنك قفك صحيح يسكن نقل هذا ولي بيقول أنس نبي محمد مر عليه وليبا أنك أغنهي قفك أوصل السيدة بدنا أغو أدقيه سي أوصل علمه سي إيحاسكي سي أغو ترحمه يبوسن كوة كلا أغو ترحمه سي أوصل كوي سي أغو أتكين من قفك أغو أتكين لكن نبي محمد تاس هو عكسي ما أهي ساسك والنبي الرحمة إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والنبي نبي الرحمة فما قال لي أفقط هدي وحي مركي حديث كجرت الروايات حديث ددك اهلكيسا قال عنانته سيده امهات المؤمنين كو كله اسكا دافو يدي جير نبي هدو الهي قدر لها و سمي لها فرح كخاب وفقت وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وحان سميين نبي ولي ما دهين بمحا وحا سميس وحان كتغينا ما هذا وقتك مدحي عليه الصلاة والسلام بالفيرية قف كسر جورجي ساوونه كم أنت يلا جاي حاس كذا إن هذا أذكر ترى المهاجة وهذا أفر إلا لا تنكيسا المهاجة هذا درف إنك هو أركان حتى قف كي يسكون عليه عن هذا الدهن وتشي وبدلها هي كلية الله جرنا يا أضو كلر كيسي إنه بدلها يوم مرتين حناق سنية وحن النبي محمد لقمة عليه الصلاة والسلام وحان الله ربا دادك وحي أخلاق دودا كاغا فوضا إناد كلا معاملوتي وحي يرهدان عائمادو مركي إمام نووي حديث كاو شرحي قف كدونا هيبوي دادكو السيدة أي رابا أساقو رابا إناي أصنا أيام بوير كو انتفاعي ما هي دادك ما دعيك حاول دادك هدو ما أدان سميس ووحا حتى الله رابو قريها النجا إناي أغادان أو كود بقنا حاسكو أغاتو ninka gabadha uu ogaado qofkan ilaahay kuuguma sameyn dabeecadii adigu aad rabtay sidii uu rabo ilaahay u sameey haday meel ku xuntayna meel bay ku asda gabadhuna ay ogaato zawjkeedo kala saaso kale qofka sidoo kale khaadimka ama qofka la shaqeynaya ama qofka wax ka dhaxeeyaan shaqadu ka dhaxayso inaad ogaatid adigu sida aad rabtay qofkan ilaahay kuma sameeyna sida ilaahay asagu rabay qofkan ku sameey wixii marka dhaqankiisa kaaga fudud ka qaado waxa kale iska saamax waa sida arinta nabi maxamed nabaraysa alayhi salatu wasalaam ma ahan ina dadka xagatid ma ahan ina fadli noqotid ilaahay quraankiisa muxuu walaw kunta fadlan ghalidal qalbi lam faddu min hawli akoris fabima rahmatin min allah linta allah wuxuu ilaahay uga ka dhigay nabiyur rahm gabigiisu rahmad تتاو حاكو تصنعيه نمكي أد أغيسين قريش نبي محمد تعامل كلا تعامله نباتة أي أغيستين كوي دد أغود دوا قبيل كو كنا شيء مجالده كنا شيء عليه الصلاة والسلام
dhibaato geliyay xad inuu habeennimo ka soo baxo oo ka guureeyo weliba inta aan looga harin uu dhibaato geliyay inuu god galo la og yahay intay xoolo dul dhigeen oo yiraahdeen qofkii soo qabta nabi maxamed iyo ama soo dila intaasoo xoolo diyaabaan siinayna isna maalinku ka qaalib noqda fiiri raxmadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinkii maka la furtay kacbadii agteeda quraysh la iskugu keenay muxuu yiri fama taquluna anni fa'ilun bikum al-yawm maxaad malaynaysin maanta inaan ku samaynayo سهيل بن عمرو بالله لو وحي أخ كريم وابن أخ كريم ولا لو ونكسن بعتيبي ولا لو ونكسن واقنا اذهبوا فأنتم مطلقا اسكت قال قفنا حولين سلما قادم قفنا الله بطابا فيري اسلام مركبي عداودي إيا فكر كي أي نبغا كأمين سلايين محي اسكو بدا شيء شعين واتي هند لهاد والله وحان حدا كهر بيتي وحان دلك على جعلا أديك إيا فمل كاقا إنو سنشرين بيتي ما أنتنا إنو سنشرين بيتي رقف أن أديك إيا إهل كاقا عزك على جعلا معناها محيدتك الشعب وينها أقادين نبي محمد إنو سن بقرطو يؤدى قالمي حامتي إنو سن أؤدى قالمي قولوا حتى النبي محمد كنا ولا والله حراشت قولوا المهاجرين تأسير له الدبر قويو سيسر مياشا أغوصوا نقول قف بقفك الدواء بقوليه سي حراشت قال السيل قريب إبر واتي النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع أصحابتي ركب من ويديون ويرهدين ميادا قرية قدقي مكة مركز النبي وحيد وهل ترك لنا عقيل من منزل بي عقيل بن عبد طالب اللي هو كدم بيصمه أصلا حراشتين قالوا الريب بن حشيم وحودي وحراشت وحمل نوقته يورد حتى مده النبي عليه الصلاة والسلام وحودي يا وابورينا يا وحنا واسع عشرنا حبل لك مدبتك الفير الصنح قاس وهو قفك مسلم كا أما قفك هجان كا لجربه يا العفو عند المقدرة مركو أودي يشو وقالب نقضه ضدك إنه كعر صدمه هذين كنا شلي حوجا معارض يقوها كنا أنيق محافظ يقوها كنا حمين هيا كنا دباتين هيا ما هن إسلام كقطراف كنوع عاصمية قال وهذا رتب بلدان إسلام كمركز الفرني رجي وحلا سوقت هبل لو يقاني وأصحابتي النبي قال لي أو دجال ككوتشري أو ولا قوتها من الله بتابني فرح لك قال بس محي مركز إسكوب بدأ شيء ذاتك إن إسكسو إسلاما وأنا ذاتك دخن كيلو أجا النبي عليه الصلاة والسلام كلا دقمة إذا محينا بريسة ذاتك مسلمين تا إيه حتى هو قال هذا إن أساسه كلا دقمة رحمة قفك أدون حريصة مركز كأود رونات إسكسامحتي وحبا شلو ساتر يقول سميي شلو وحني قبي إيه شلو Soomaalidu waa taqaana oo nijaasa ka martiina macna waa xumaata ku sameey walaal reer xamarkeena wax yiraahdaan gambar gaamba kugu fadhiya macna ka hari maayo weey ya waa isla mahmad waa isla meeshi ya macna meeshi la isbari lahaa in la isku sabro oo la iscafiyo waxaan ka qabsanaa wajazaa'u sayi'atun mithlaha wali baday ka basiyo darar badan ka basiyo daranba oo ka sii dhib badan ma aanan fiirin فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قفك مؤمن كساسا لقربا إنه عفو سيدا النبي عليه الصلاة والسلام دخن كجميل كاي أوضتك كل دخن جري dhaqanka wanaagsan oo uu dadka bari jiray inaan ilmaha naga bar inaan guryaha naga bar inaan ehelka naga bar maxay yeelay biri ayaka dadkii waaweynaana dhaxlaayay sayid xasan baa wuxuu dhigi jiray markaas ilmihiis markuu siiradii nabiga iyo qazawaadkii asxaabta iyo wixii uu barayay antum rijaalul qadib dhigi jiray biri adinka odayaal
maanta dhalinyarada yaryarka ayaama yarka bacda iyaka arkaysa sida nadoo kale iyakoo cirra qaatay duqduqoobay annaguna waddadii waa ka baxnaatay waxaan naqaanay waalidiintanadii kulli tage annaguna waddadii baan hayna idan waa in ummadda looga tagaa hoggaan wanaagsan dad wanaagsan oo wax la baray dhaqankii wanaagsanaa la baray weliba maantay aad baan waxaan ugu dadaalaynaa meelaha qarbiga markaa nimid oday kasta maamo kasta waxay leedahay wiilkaygu maalin dhexasaaneen wuxuu igu lahaa guriga waa guriga keliyaho 3 master shahaado ah ayaa laga haystaa ilmahayga 3 ka mid 3daas master waxa uga fiicnaa lahayd xoogaa diinta islaamka oo si fiican ugu baro wax xaqiiq ana ayaa la baran dunawiga mali dunawiga waa habboonta in la barto waxa laga qabsan waxa caalamka maanta lagu legdamahayaa waa tiknoolajiyadaas iyo wixii in la barto laakiin misna qofka muslimka waa inuu diintiisa gacanta midigta uu ku haystaa adduunyadiisina uu biixda ku haystaa laakiin maanta diinki waa dayac hadda qofkii la yiraahdo iskuulka ilmahaga lacag intaas laga rabaa caaw meel ay ka keentaba waa keenaysa waa dhiibahaya jaamacadii ba waxa looga baahan yahay waa dhiibayna macalinka quraanka haduu yiraahdo ama macalinka xoogaa siirada iyo barahaya diinka barahaya $100 buu u baahay wadaadku waa qaalib ay leeyihiin kuwa kale aan helaynaa bilaash ya macnaha maxay ku tusinaysaa diinkiiba inuu saqir ilaa qofka ogow waxa qiimo la leh qalbigiisa kuwan waxba ku bixinay hadda diliya dhagax weyn oo dahab ah lagu siinaya $10 hatta diyaar baad la tahay inaad bixiso ma wax weyn inaad bixiso ha diyaar baad u tahay حيل واحد أكتر واحد فالي يقيم إنه ليه هبال أكتر لكن رجع حد يلقي يكون $9 كبح رجع حلقة على وصل قاعدين وسيقول ليس كيس أقول هي حتى شيل ما ندير هو هنا كبحية وحقيقة قلبي جنّجا واحد كتير تعرف كترجميس ما دام الدين كأن ضيعنا إنا واحد كبحنا مرة لكن دنوجي ديار برونا هنا واحد كبحنا وروحت أوقاتين دينتان إسلامكو كما سعوشرين دولة كلية أوضتك طبان تابتا أو حسيس وحي كو سعوشرتي صغيرا وكبيرا قف كستا أو ديار أو إنو دينتي سوى حكا الدفاع إنو أمور تعامكا مركا أد مقليسين أو إسلامكو إركا أو مرهي أو قف كستا أو إسلام waxa daily life kiisa kamid ahayd inuu maalinta shaqo caama u qabto wax kale haduu qofku waa dariiqo xaaqa ya dariiqo nadiifinay ko midkii xataa aan duulaanka gali kari kii duulahayay oo ama faraskii ama gaadiidkii buu siinaya ama zaadkii buu siinaya waad aragteen rag badan oo aclaamta islaamka kamid ah ciidamada laha jireen ay hogaamiyaan ma ahan ciidankii dawladda oo mushaariga ah maaha عيدا متضوعين لي أحمد بن إسحاق السرماري بقى كميدا أو بخاري مشايخ ديسي كميدا صدق كن أو عيدا وهو جامي تلان اللي مأمون يو وحيس دولة عباسيين صدق كن أو هو جامي يو دولة مشاركة مقاطع دولة ما تبنطاط ممكن يحدود دم إسلام كإلالية أو فرطة كلكيس isaga hadii mid uu baahdo gaadid waa soo deemanaya haduu bixi waayo zaadki waa sidoo kale ilaa markii dambe ay dhacday Harun Rashid Ma'muun baa wuxuu soo diray lacag badan oo uu yiri kaalmayso maadaama nin uu islaamka dhinac dhanka difaacaya uu yahay lacagtii inta ku celiyay buu yiri ma wuxuu moodaa isaga dartii inaan u dagaalamahayo oo islaamka aan u difaacayo soo dantaydi aniga ma ahan ma doonayo lacagtiisa u celiyay أديابي ساماليتا ولنتبه لدين تلغولا إسلام كمركو تاغنا ومركا النوع عاسي أنا كان هدان صومالين هاي مدبمتكي كوري هاتش اللافيو وكتغا أثر هاترتر ومالين كسا هدان كوشرنا مدبمتكي كلاوحيسي هاترترو قرما وحنا قرين وحالا ذا قف كان هدو حتى هدو مد كانوا مساجد كان حوغا هاف بسي هدو هاف كلابال كسيد
mid kale waxa ku sii daro maalinka dambe waa istaagahay kan meel kasta qofku kuma xuma waxba uu qabtay kii kale yimaadaan hadduu wax kale ku sii daro hal tilaabo kii kale wax kale uu ku sii daro waxba noo qabsoomaya waa istaagayaan hawshu laakiin keliyaba waxaan ku mashquulnay midba mid inuu siiradiisii tirto marka maxaan ku jirnaa dawr iyo tasalsul saacaan iskaga daba wareegayo waana dee dawladka islaamka oo dhan hadda kaligeen maahan dhibka haysta waxaana keenaya wadadii nebi maxamed baan ka leexnay calayhi salaatu wasalaam wadadii baan ka bayr war qof kastow diintaada wax u hor ku talagal waa dadka waan is ognahay Soomaalidu ama dabadaan ha joogeen ama gudihii ha joogeen waa dadka waxa lagu leeyahay ugu caa'iladaha badan ugu familka badan halkii guri laga yaabo 10 inay ku nooshahay ama waxa ku dhow ay ku nooshahay haye bal horta at least familkaagaas adigu haddaadan wax kala aadan sameeynin wuxuu yiri zubadkii imaamkii fa'mal walaw bil ushri ka zakati haddaadan wuxuu yiri aadan cilmiga oo dhan ku amal falay ushur oo kale sida zakado kale hal ushur 10 meelo kale ku amal fa bal hatta hal walad diinka u dirso oo ku dadaal inuu caalim ku noqdo oo intii kala dadkii wax baro oo in marta uu ku anfaco حد مالينيس reer kasta haduu ku dadaalayaa bal hal walad inuu soo saaro oo sagaalkii kala ama 8dii kala ama 7dii kala adduunka uu dirsan wax weyn baa noo soo bixi hadda asxaabtii nabiga dib u fiiriya siiradoodii raggi aimatu taabiciin fiiri waxa kada kuwii ka dambeeya fiiri qof aan ilmihiisi qof caalima laga heli kari waayay caalimna iska ma noqon ogow waa waxay kula dadaaleen waa waxay kula halgameen waa waxay xoolahoodii ku bixiyeen wuxuudii bay u quureen annakana marka sidii oo kale nala kaga baahay inaan diinta islaamka aan wax u hor dhaqankan laga sheekaynayo wanaagsan sahal kuma imaan dadka noo soo gudbiyay dib bay ku soo gudbiyeen kuwii kale soo gudbiyay ilaa yoomina hada wadarta in badan oo aimatu islaam kamid xoola ma tabcanay waxba ma tabcanay juhdigoodii iyo xooggoodii iyo maskaxdoodii diinka islaamka gadiy adna waxaadan u quuri karin hal cunug oo kamida ilmahaaga inaad intaas oo juhdi aad geliso iska dhaafada 10 geliso oo ama 5 geliso ama 6 aad geliso waxa sida xoga aan iska bedel marka aan xadiidkii u noqono أنس وحير مركز النبي ولي كلمة دير فنا إمام موجين ولينا إمام وحن محاد وسميس أما وحن محاد وسميوي هل كأريت أسوك إمامسا وكان من أحسن الناس خلقا أنا أحسن الناس خلق نبي وحوه تذكر متك وقد بعد وناس لكن كيس عجيب ها النبي عليه الصلاة والسلام لكن كيس رمب رحمة لكن كيس رمب لطف وحن مركز وهذا أنس كور رمايو ugu waa umurta dunawiga diiniga may qofka ama waajib dayacaya ama arin diiniga ku tumanaya nabi maxamed uga ma aamusi jiray alayhi salatu wasalaam ila ahadithi maxaa kamid ah qowlkiisi ficilkiisi taqriirkiisi waxa inta agtiisa qof ku falay ama qof uu ku qowlay nabigu uu san radin ila qofna nabigu munkar ku sugmay وأحاديث النبي كميت عليه الصلاة والسلام لكن أنا سوحه كور رمي واحدة أشياء الدنو جوي واحد دنو جا واحد وقت غير النبي وكما أنا نجري مركب واحد كنت سنة النبي إنه سن اهتمام سيجر أنا كلا واحد لا حاجة شيء السيد اللي بعدين أضاق الله وصاكرين قيل هذا ما تدع ولا يابه هي خيرك كل عظ عنتدي إسكدا هذا هو واحد وصاق أضاق الله واجب وليه هنا ما أنا أقول واجب وليه هدي لي قضي عطان ugu karin bay adigu jikada gal oo dugsiga iyo qaadada qaada dabkaaga shido ya wala kala dhimanahay bal Soomaalidu ceeb baan u haysanaa waxa la odaga maxay jikada galay ya wala isku ceebaynaya Sooma oo nabiga hadda soo mid la sheegay ma kana fi mihnati ahli suuq inta aada ka soo adeeganay alayhi salatu wasalaam goorma nabi maxamed ka qiimo badan
وأمنا عائشة لما وحساسل مركي واحد صلاته صوغ شنا كأنه لم يعرفنا وبأسوي نقرنه إنه قلب مركي عبادتي إلهي سو حاضرته ودقاقي مغرب كيف اللي تشوفها مياه يا يمكن هذا الله صعب مركي عبادتي اللي قارن مركا حوغا عادات بدن والين aan ogaan oo diintii ka soo horjeeda dhaqan kale oo wanaagsan oo runtii aad u fara badan waaleen oo diintii waafaqsan oo aas-aaskeedu ku dhisan laakiin xooga kuwa badan oo naga khariban baa jira tacaamulka guryaha ay kamid yihiin hab dhaqankaas ay kamid yihiin waxyaalahaas oo dhan qofku inuu wax weyn ka bedelo wax weyn aan ka bedelo baan u baahan oo qofku uu ogaado horta marka hatta waxyaalaha maanta ay reeraha nagu la dumayaan koow waxa kamid ah jahliga aan diinta islaamka ka mahay ma maqli jirta laba isku maan diinsan wiilkuna fikir buu wataa gabadhuna fikir bay wadataa labadiiba isku dhacay wiilkuna markaad wareysatid maalinka sabab qadiyadaha hadana loo keeno waxaan ka warramayn wax uusan waligiiba waajib u yeelanayn buu moodaa inuu gabadhan waajib ugu leeyahay gabadhuna waligeed waxaysan waajib u yeelanayn bay ninkan moodaa inay waajib ugu leeyahay waaba laba iska hor imaanaysa marar badan anigu dadka waxaan ku iraahdaa war bal seminar iyo ayaan ha tageen intaan wiilasha yarka guurka lagula ortin horta bal darsiga ha yimaadeen nikaax ha dhageysteen waajibaadka dushooda fuulahaya ha dhageysteen gabdhaha laftoodu mas'uuliyad labadan qof mid kasta mas'uuliyad baa fuulaysa gabadhiina mas'uuliyad baa fuulaysa wiilkiina mas'uuliyad baa fuulaysa ha dhageysteen ha dhowto على يقين marka isku guursadeen qofku asoo wixiisa wax ka garanay laakiin mushkilada badan oo aad xalkoodu noogu adkaada waxa kamid ah waaba la isku maandiinsan yahay gabadhu wax aan xaq aysan u lahayn bay dalbanaysaa marar badan wiilkiina wuxuu dalbanayaa wax uusan xaq u lahayn taasuna waxa keentay waa ibticaadka diinta islaamka aan ka fogaanay diinta islaam ayaan ka fogaan oo ka dhaqaaq haddii diinka islaamka wax anagu ay ku dhisnaa lahaayeen hawshanadu saatan ma noqotay marka kulleeyta hadda maqribkii baa la joogaa baan u maleynaynaa shan daqiiqo hartaan leh marka nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa hab dhaqanka marka la fiiriyo waa noocaas ammaanadii dhinaca kala fiiri tii jaahiliyadii baa waxaa la dhihi jiray maxamedul amiin nabiga calayhi salaatu wasalaam ammaanadiis ayuu jaahiliye la joogo baa maxamedul amiin la dhihi jiray waa arkayda marka kacbada la dhisayay oo quraysh ay isku qabsatay xajarul aswad karanaka halka dhigayna iyo anaka dhigayna waqti dheer la iskor fadhiya qabiil kasta uu rabo inuu ku sharafo maalinkii dama waa kii cutba yiri war bal albaabka qofka naga soo gala aan xaakim ka dhigan nabigi baa ka soo galay calayhi salaatu wasalaam waa maxamedul amiin bi kulliga waa aqbalayna go'isiibu nabigu fidiyay markii qadiyadii loo sheegay qabiil kasta jufa kasta kamida quraysh nin ha soo saarataali go'ibu daraf ku dhig dhagaxiya meeshii lagu dilay خلاص barfiir qabiil dhan oo isku baabi'ila hadda mid u saamixi lahaa laba arkay ugu ayala maalintaas qoladii laga qaato muxuu yiri ninkii gabiyay وما تغفل دول يوم الله يرفع ما أنت قف كذا يا رسول الله هو صدق حاجة عديدة odayaashii markuu nabigu carabta wax uu siinay waliga kor loo qaadi maayo macnaa hebel iyo hebel iga yaray marka nabigu uu dhameystay calayhi salaatu wasalaam marka qabiilka maanta laga tago dib damba loola hadli maayo ceebta raacda waad aragteen nabigu dadka uu dhex jooga cadaawada u qabeen misna amaanooyinka isaga loo keenay jir lama tagin ma dhihin cadaawad ba igala dhaxaysa dagaal ba igala dhaxay dhibaato igala dhaxaysa way dhibaateeyeen habeenku uu hijroonayay waa kiisay cali wadaa'icdeeta u dhiibay halkeega seexo dadka u celi wuxuudi barfiir wala yaqaan hada abi jahli ya u geysanaya amaana u geysanay shiinka hada u dhiibatada ba ka soo saari karin waa nabiga waxa la aaminay calayhi salaatu wasalaam hay annakuna maanta waad ogtiin dhexdanada waxa
نقطي واحد مشاعة أكون جنبي وخياني يا ودردري والإسلام كوحس ميو يقانا صومعها النبي عليه الصلاة والسلام لبدا قف مركي معاملة قليان وحكلا إيبسان أيان هدي النبي عديان بيرميد كاستا شيء يسعبت أوليه ورشيء أنا كا يقولي عبتان أوليه ورهال كانوا لأيه ورهال كانوا لأيه كما صدوا كله والله بركينا يا بيعود هدي قريان بيري نبي محقق بركة بيعهما ويحب بركة على قتره أدو أستلاهي فإذا كستاد هش وحوين بعد هالشيء ورماء وذا نين دكتور هو حقا كنتاكي إلى الدكان فمثل صومالي هو حركلي المهن أفريكانو علنا هي اسكاga علم بيوا باكستاني أصلا هي اسكاga علم بينتي برنا هيان بيو حتى متكا إلى سعود ويل والله سعود مساك اللي ماذا باكستان جيم هي بينتو برنا هيان بيو هذا سمية قانون كل حم هاي بل فيري خيانة وارنتيس صومالي متكا تبجرك بقول عتلاهي أو كجدهي معناها وحويه dadka waa waxa ilmahan ma aha waxan kuma dhalan waa waxay aabihi iyo hooyadii ka arkeen ayakii ba khiyaano sameeyay ugu anaku Soomaali baan dhaqana qamiis beeshana ka soo gadanayna orod maandhow masaajidka aad orod soo tuko ilmahaygu waa fiiciyo quraanka waxa waa yaqaana meel fiican buu gaar inta soo juz buu gaar tarbiyada koobaad waxaad ogaatiin Soomaaliyeed waa ficilka وحن قول كاغو ولي أوسن سامي كريم بفعل كاغو أسامينيا لكن كأي الموكو أركان هذا بين كوكو أركان ولي جارون شيء أدوية كهذا يسمى هي خيانة دي بكوكو أركان وح خيانة كهذا يسمى هي مركا وحال كاغو أصلاحنا هي قول كاغو وح بدل وحال كاغو أصلاحنا أنت أن مركا المهم مساجد كهذا عن نبهن أن نقطعنا عن إصلاحنا بينت عن كدوسن خيانة عن كدوسن إصدام مرينت عن كدوسن حنت يبلايا عن كدوسن إلمهنا ويدوسن عني أديجي بيكو ضيعي لكن أضو أنت سمينا هي وعلى المكوجة هجاج أورد مساجد كأهل حيل أديجي بأركايا أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته